Waxaa maalintii labaad magaalada Jowhar ee caasimadda dowladda Hirshabelle ka soconaya wejiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta mid ka mid ah beelo walaalo ah oo dhawaan ku dagaalamay tuulooyinka Baarow iyo Mareerey ee hoostaga degmadani Jowhar. Kulankan wada-tashiga nabadda ee labadani beelood ee walaalaha ah ayaa waxaa soo qabanqaabiyay maamulka degmada Jowhar oo uu hormuud ku yahay guddoomiyaha degmada Jowhar Cusmaan Maxamed Mukhtaar Cusmaan Baari. Haddaba qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee labada beelood oo madasha ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay dhibaatada ay leedahay colaadahani soo noqnoqday iyo waxa sababa in ay diriraan dad ehel ah oo isla dhashay. afar soohdin gobolka ana xagga inay dhacdo shan qof wax shan khalaafka waxaa keeno laba qabiil oo aan kala baxsa karin soohdin aan soohdin kala baxsa karin marka halkaas ma laba deegaan ba labada qabiil deegaankooda soohdin ma kala baxsan ay leeyihiin macnaha lix khalaafka waxaa keena kufsi naageed naag la kala kufsado toddoba khalaafka waxaa keena ceel biyood sideed khalaafka waxaa keeno beer la daaqay sagaal khalaafka waxaa keeno nin wax lahayn oo yiraahdo wax baan leeyahay nin wax leh waxaan leeyahay khalaafka ana waxaan leeyahay aan khalaafka inta joogan sagaal toban khalaafka waxaa keeno nin dulmi cad lagu dilay nin dulmi cad lagu dilay khalaafka sagaal ma joogiyo toban ma akhriya khalaafka waxaa keeno cadaalad la'aan laba iyo toban khalaafka waxaa keeno kala dambeyn la'aan kala dambeyn la'aan waxaa keeni karo aqoon la'aanta dadka hadday aqoon leeyihiin oo dad wax fahmi yaqaanaan oo diin iyo maadi labada meelba ay yaqaanaan waxyaabaha barkood ay ku dhacayaan waa ka leexanayaan sidii shalay culimmada imaha noo wacdinaysi aqoon la'aan waa iftiin la'aan qodobka koowaad waa aqoon la'aanta waa in aqoonta lagu dadaalo number labo cadaalad daro beelaha dhexdooda hadday cadaalad jirto oo odayaasha ama nabadoonada ama akhyaarta tuulada dhexdeeda ay cadaalad dhexdooda ay taal waxyaabaha barkood ama lagu dhimanayo ama lagu dhaawacmaayo mise lagu barakacayo ma jiraayaan ilaa dad aqoon leh oo maskax isku darsanayo oo fikir leh oo wixii dhibkoodana yaqaan oo wixii dhib oo dhaqaal daradoona oo yaqaan waayo dadkaas dhib ma qiimaahayo cadaalad darada ana hadda waa qbiyaan nahay dadkaan walaalahayna baara waay waxaan arkin iyadoo halgeel ee qofta bini'aadanka dhib waa iskiimaha habeen iyo maalin dhib waa imaan kara waa la isku dhacaa dadka bini'aadan waaye habiil iyo qaabiil ay soo dili hadda ma bilaabanayso dhaqan aan oo jiri oo caadi ah marka waxaan arkin halgeel la soo gadaa ninkaas waraabaan cuni bahalaan cuni geelkaas lagu duugaa lamada ton caafimaad ay ku qabaan haddana waxay noo maro haysay $50,000 maxaa keeni cadaalad dara keentay 50,000 in hal nin bini'aadan iska qaadano iyo hal geel oo markaas oo 4,000 mise 3,000 lagu bixin lahayo intaas la soo mari dhaqankii hore oo laga tagay number 4 kalsooni daro dadka ka dhaxdooda ka timaado kalsooni dar haday timaad maxaa keeni kara kalsooni daro warninkan afar jab la waaye warninkan dhaxlayn iskayna dilo raway la luus cun waaye warninkan saan waaye ninkan ma toosna
dadkii dhaxdooda waxaa ka timid kalsooni dara la'aan oo aad iyo aad u weyn ilaahay aanu soo celiyo kalsoonidii hore qodobka shanaad waxaa ka mid ah isbaarooyinka oo jidka la dhiganaayaba ka mid ah isbaarada waxay ka mid tahay dhibkay ka mid tahay anagoo tuulaan deganahay baawaraan wax soo saaranaynay jidka waxaa ku taagan nin qori haysto halaan isii haddii isii haynin mahama maraysi dadka waa la dejinaa mashquul xoog lahaa meesha kugu qabanayo ilaa ninkaas laga xaliyo dambiyada ugu waaweyn waxaa ka mid ah dilka dhaawac la isku geysto kufsiga maalka la iska dhaco dhulka la iska dhaco guryaha la iska gubo jidka oo isbaara la dhigto burcadda fasahaadda biyaha beeraha u geysato waxaa batay khilaafaadka batay saddex waxaa laga bixi karaa cadaalad in cadaalad la helo inay dadkaada wixii dhibaayo cadaaladda waxay ka imaan kartaa dadka diriska ah shan in ay isdowraan lix in ay mid ka ahaadaan khilaafaadka dhibaato inay mid ka shaytaan waa jiray min khaloq waa jiray wiil khaloq waa jiray halka aadan oo is ahaanan oo hal qof loo gudbo todoba waxaa yaraaday wacdigelinta bulshada iyo aqoon la'aanta in heshiiskii soo noqdo waxaa yaraaday wacdigelinta wanaag u sheega diris dhowrka taas waxay keenay heshiiskii hore oo la heshii inuu soo noqdo markee intaa wax lagu cuni waa la baxay miil maal qabsi waa la jeefti xaggan yaa ku jiro wax ma garato waa ina aagshe ka sorta intaasaan ku soo gabagabeeyay aniga waa muriid Isaaq Ibrahim ku dhashtay gobolka Shabeellaha Dhexe ee Jowhar tuulada Mareere waa in horta marka hore la isugu yimaada is arag la isugu yimaada oo la is arko oo ugu horeen is arag la'aantiis wax ma shaqeynayaba waxa la isku maqli karaa in marka hore in la isugu yimaado gogol loogu hadlo wada hadal wada wixii dhacay gogol go'aal shan waa in xaqiiqada looga hadlaa gogoshaasna oo si sax ah looga hadlo xaqiiqo laga sheego warkaas meesha oo laga hadlaayo waa si sax in looga hadlaa oo xaqiiqo laga hadlo saddex dhaqanka soo jireenka ah waa in
tixraaca wada hadalkaas soohin hadduu wareerana habarkaa la tagaa wax hadday isku labmaan ciddaan looga maarmin ama meesha ay markaas dadka ay talada ka go'an tahay loo tagaa amaba meel haddii ama soohin la bixinaa la yidhahda habarkaa la tagaa aan soo qaataas soohin hadduu wareerana habarkaa la tagaa intii uu socday shirkan ayaa la filayaa inay ka soo baxaan natiijooyin wanaagsan oo lagu dhexdhexaadinayo colaadda iyo khilaafka dhex taagan beelaha walaalaha ee dega tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar. Maxamed Deeq Yuusuf, Hirshabelle TV, Jowhar.